90% youtuberska cusub waxay quit gareen ama iska joojiyaan YouTube iyagoon gaarin boqolkooda subscribe ugu horeeyay. Ana maanta waxaa ku sigtay inaan ka mid noqdo 90kaas because of bishii la soo dhaafay waxaa soo duubay videos waqti badan iga qaatay editkooda iyo inaa videoskaas ka dhigo high quality. laakiin marka aan YouTube soo dhigo kadibna aan ku laabto analyze-ka iyagoo xitaa aan gaarin 100 views waxay u noqotay the pressure aad u badan. laakiin waxaa ilaaway sirtii ugu weyneed YouTube oo YouTube ma aha meel saacado gudahood aad ku guuleysan karto. waa algorithm u baahan waqti si uu u ogaado videoskaaga, yani dadkii ku habboonaa audience-gii videoskaaga looga talagalay. mana ahan videoskaagas viewska aan helaynin dadyoga badan aan daawanin inay yihiin videos low quality ah. waxaana maskaxdayda ku jiray hadalkii uu dhahay Mr Beast oo ahay 100 video soo dhig kadibna analyze ku soo laabo. so maalin baa waxaa dhacday video aan soo dhigay 1.5k views daawatay, mar kale soo dhigay 1k baa daawatay, mar kale soo dhigay 1.4k daawatay, mar kale soo dhigay hadana waxaa daawatay 1k. laakiin anigu waxaa is dhahay way ahaatay, yani videoskan viewskooda sida u bilowday waay. laakiin maalin baa waxaa dhacday video aan soo dhigay 200 100 post maalinba maalintii ka dambeyso videoskayga viewskooda hoos u soo dhaca. so marka waa maalinka aan is dhahay niyow waa inaa YouTube dhan iska daysaa, video ha sameynin, waxna ha duubin. saaxiib, haddaad maanta bilow tahay ama YouTube ku cusub tahay ama content creator tahay oo viewskaaga zaid u hooseeyo, subscribers badan aadan haysan, saaxiib maalintaada way soo socotaa. never give up, ku soco. dadkan waaweyn ujeedid youtuberska Mr Beast oo kale waxay ku qaadatay inay 1k subscribers gaaraan muddo 2 years so saaxiib, haddaad cusub tahay waa inaa ilaalisaa sharciyada u yaalo YouTube oo inaa consistent ahaato every single day, inaa waqtigaa ka dhigto mid aad video idea soo raadinayso, mid aad script qorayso, mid aad video soo shoot garaynayso, mid aad soo edit garaynayso iyo mid aad soo dhigayso. kadibna videoskaas aad soo dhigtay aad ka baranayso isbedelada ay sameynayaan kuwa performance-ga fiican sameynaya, videoska dadyoga badan daawanayaan, CTR-kooda. so waqti baa dhici doono inay videoska gaaraan millions or thousands of views. waa in salaamaya, subscribe-tana ha iga ilowin saaxiib.